gudoomiyaha golaha deegaanka Ahnaduqa degmada Caynaba mudane Khaliif Ismaaciil Salabaan ayaa maanta dhagax dhigay balli dhaam oo uu dayactirayo kambaniga Safo Construction Company ayna maalgelinayso hay'adda Caritas isla markaana laga hirgelinayo magaalada Og. Madashan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin maayirka degmada Caynaba, mas'uuliyiinta hay'adda Caritas, madaxa kambaniga Safo Construction Company iyo waliba gudoomiyaha magaalada Og iyo dadweyne kale. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha magaalada Og Cabdinaasir Cabdisalaan Shire oo halkaasi mahadnaq aad u ballaaran uga soo jeediyay mas'uuliyiinta hay'adda Caritas oo uu tilmaamay inay mashruucan ay ka fulinayso magaalada Og wax badan ka tarayo baahida dhinaca biyaha ee ka jirta deegaanka. sidoo kalena waxa uu mahadnaqaasi la mid ah uga soo jeediyay halkaasi kambaniga Safo Construction Company oo dhisaya dhaambiyoodkani. mas'uul u hadlayay hay'adda Caritas ayaa isna halkaasi ka hadlay wuxuuna tilmaamay isla markaana dadweynaha iyo maamulka deegaanka oo u soo jeediyay inay ilaaliyaan isla markaana ku fara adeegaan sida ay u ilaashan lahaayeen dhaambiyoodkani. Ismaaciil Timajile oo isna mas'uul ka ah kambaniga dhisaya dhaambiyoodkani ee Safo Construction Company ayaa tilmaamay inay u fulinayaan mashruucani sidii loogu talagalay. Ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha deegaanka Ahnaduqa degmada Caynaba mudane Khaliif Ismaaciil Salabaan ayaa halkaasi ka soo jeediyay muhiimadda uu mashruucani ugu fadhiyo magaalada Og iyo shacabka ku noolba. magaaladan Og iyo taliyaha ciidanka booliiska kambaniga mashruucan wada ee Safo horta intiina marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inta markaan ka gudbo maanta runtii waxaanu dhagax dhignay oo aynu ilaahayna ka baryaynaa inuu ka dhigo kii dadka iyo dunyada iyo deegaankaba anfaca balligan ama haradan ama maxay haytay daamkan kaasoo ah runtii mid siyaasadda biyaha ee deegaankan Og iyo inta ku xeeranba wax way ka tari doonaan. si kastaba ha ahaatee kambaniga Safo Construction Company ayaa dhawaanihii u dambeeyay mashaariic kala duwan ka hirgelinayay deegaamo badan oo hoos yimaada gobolka Saraar. Maxamed Aadan Dirir, telefishinka caalamiga ee somalichannel, Caynaba.